kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa Jeegan Channel TV maanta waxaanu idin haynaa waraysi aanu kaga hadlayno sanadka tigay 2017 maxaa lagu xasuusan doonaa waxa waraysiga noogu martiya ambassador Saciid Yuusuf Cismaan Saciid Cawsle oo ahaan jiray gudoomiyihii jahliyadda Somaliland ee wadanka Uganda ahaana oo qaabilsanaha dawladii Somaliland ee riyaale wadanka Uganda haddaba ambassadorka oo maanta noogu martiya stuudiyaha iyaga aan ku leenahay wadanka Austria khaasatan magaalada Vienna ayaan waxaan ku waraysan doonaa waxyaabaha lagu xasuusan doono sanadkan iyo waxyaabaha laga filan karo sanadka cusub ee 2018 hadii eebe inoo gaarsiiyo ku soo dhaw ambassador Saciid Jeegan Channel TV aadi ayaa Ismaaciil ma santahay adiga iyo bahda warbaahinta mareegta Jeegan Channel oo ku dhawahay waana mahadsantahay mudan shaashida ugu horeeyay waraysigana ambassador dhaxgalo shaashida ugu horeeyay waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo sanadkan 2017 ayaamaha yar kaarsan laba maalmood meelaha kaarsan yihiin maxaa lagu xasuusan karaa ama siyaasadda Soomaalida ama geeska Afrikaba ama caalamkaba والله إسماعيل وحياه فرقدان أيها لو حاسوسان دونا سنة كنت جاي معلمها كمان أي كارسين اللي جن سوتيله سياسة بدن أو أدونك سامين كله متبان يمتبان هي السيستم ك سياسة يدقالها هي أمانك وصدق اسكو حلوي السينما ما لا أقول ترين مركب متدقالة يمت سياسة يمت أمنية sanad kan waxa weeye adduunyada waxa weeye sanad saameyntiisa ku lahaa weeyaan tusaale ahaan waxyaabaha ay ka soo qaadan karno waxa kamid ah isbedelo ka dhacay gobolka geeska tusaale ahaan waxaanu soo qaadan karnaa doorashadii February ee wadanka Soomaaliya ka dhacday in nidaamkii markaa jiray laga adkaaday oo ku soo baxay madaxweynaha maanta Farmaajo doorashadii Kenya ka dhacday oo ilaa maanta murankeedii iyo waxa weeye isqabsigeedii uu taagan yahay kastoo lagu celiyay markii lagu murmay haddana wali uu taagan yahay inaanu wancin aqbalina sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa doorashooyinkii ka dhacay Somaliland oo saameyntooda lahaa waxa doorashooyin aad iyo aad u xamaasad badan waxa daarad badan aad loogu tartamay oo markii ugu horeysay taariikhda lagu codeeyay qalabkan buuda isha waxa weeye sawiraya taasoo iyadana ahayd waxa weeye doorasho saameynteeda ahayd laakiin aanay taas muran iyo reebin waqtiis qabsi madaxweynihii soo baxayna la hambaliyay taas waa siyaasadda geeska Afrika weeye waxyaabaha kale ee ay sanadkan ku xusan doono waxa kamid ah dhacdooyinkii oo inay ka dhacay bilihii ugu dambeeyay sida dhawaaqii ka soo baxay Donald Trump ee ahaa inuu toddoba waddan oo islaama waxa weeye ka mamnuucay dalka Mareykanka arrintii Qudus oo maanta taagan oo wadamada islaamku ay si adag uga soo horjeesteen halkii uu Donald Trump ku dhawaaqay caasimada Yuhuudda noqoto dilkii madaxweynihii hore ee Yemen Ali Abdullah Saleh mandaqad xaaladeedu moogtay aanay isku sanadbanaaneyn oo waxa weeye ay gabadh calaynayso ama aanay maanta meel lagu soo hagaagaan aanay jirin Iran oo cunaqabatay intii laga qaaday heshiiskii moogtay heshiis weyn adduunka la saxaatay wadamada quwadda leh lixda wadan waxyaabo fara badan oo maaragtay adduunka saameyn kale baa soo maray waxa weeye Kuuriyada Waqooyi oo gantaalo ilaa Mareykan gaaraya tijaabisay haddaan kusoo noqdo gobolka geeska Afrika waxyaabaha in xusuusan sanadkan tagay waxaa kamid ah ibti iyo rabshadii ka dhacay Itoobiya khaasatan qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada oo si xun waxa weeye ay u dhex martay colaad adag oo waxa weeye dad badan ka lagu laayay oo dhinac walba ah waxyaabahaas oo dhan baa sanadkii tagay lagu xasuusan waxyaabaha dhinaca dhaqaalaha markaan ka hadlayno geeska Afrika khaasatan Somaliland heshiiskii EB1 ee dekada Berbera oo intaas milyan ku kacayay 400 milyan waan filayaa inay ahayd waxyaabaha ay ku xusan doono xagga dhaqaalaha ay ka mid tahay Somaliland oo kale u soo kordhay iyo muranka ay keentay golaha baarlamaanka inkastoo markii dambe lagu murmay waxyaabahaas oo dhan baan ku xusan doonaa sanadkii maxaa ambassador arrinka Somaliland adan sii eego dawladdan cusub ee ka timi waxa la sheegay heshiiskii inaanu aynay yar hakisay maxaad bal saad u aragtaa halkaas
heshiiskaas iyo siduu u socday markii soo والله heshiiskaas marka xag laga eego waa xag wanaagsan in fahmo faa'iido mar walba Soomaaliland oo in waxa way kaabayaasha dhaqaalaha waddanka ku baahan yahay horumarin wadooyinka u baahan dekedaha u baahan airportada u baahan wax soo saarkii gudahooda u baahan horumarin marka anigu waxaan aaminsanahay haddii qalooc jiray oo wax la sixi karo ay tahay dhib male oo waxa weeye dib la sixi karaa laakiin anigu mar walba waxaan taageersanahay aan leeyahay heshiiskaas dib haddii loogu noqonayo waxa weeyaan lagu fogaan oo wixii khaladaadaha laga saaro laakiinse wixii horumar waddanka u keenaya ummaddu ka faa'iidaysanaysa shaqo abuur keenaya inaynu waxa weeye ummaddu waxa weeye xukuumaddu aanay waxa weeye kalgelimaan jecel laakiinse wixii horumar keenaya ummaddan taageerto waxaad ka warantaa oo kale dowladdan iminka Somaliland la doortay maxaa laga filan karaa sanadka soo socda ama guud ahaanba isbedelada hore aad soo sheegtay maxaa laga fili karaa inay sanadka sii socdaan iyo inay wax cusub yimaadaan maxaa sanadkan cusub imanaya laga filan karaa muuse bixiye madaxweynaha la doortay xukuumaddiisa hawl adag baa u taalla anigu labaan u kala qaadayaa siyaasadda arrimaha dibadda iyo siyaasadda arrimaha gudaha dowlad walbina labadaasay waxa weeye hadday ku guulaysato horumar bay gaadhaan muuse waxa u taalla siyaasadda arrimaha gudaha haddaynu soo qaadano tusaale arrimaha dibadda soco marka siyaasadda arrimaha gudaha muuse iyo xukuumaddiisa waxa u taalla arrin aad iyo aad u ballaaran kala qaybsanaan baa jirta dadkii reer Somaliland gudahoodii marka waxaa loo baahan yahay sidii muuse iyo xukuumaddiisa ay u midayn lahaayeen arrimaha gudaha khaasatan gobollada bariga iminka madaxweynihii khaatumo cali khaliif arkaynay walwal buu ka muujinayay heshiiskii xukuumadda hore la galay haddaanay Somaliland gudaheeda hagaajisan oo siyaasadda arrimaha gudaha la midayn oo beeraha la wada qancin oo deegaamada la qancin oo waxa weeye xagga gudaha aad iyo aad xukuumaddu uga shaqeyn oo furfurka faraha badan ee gudaha ka jira aanay xukuumaddu ku guuleysan siyaasadda muuse arrimaha guduhu ay fashilanto waxay dabarjab ku noqonaysaa Somaliland marka muuse chance iminka la siiyay ee 5 sano ah waa inuu kaga faa'iideysto siyaasadda arrimaha gudaha inuu dadkii mideeyo inuu kaabayaasha dhaqaalaha soo nooleeyo inuu musuqmaasuqa la dagaalamo inuu sidii uu inoo sheegay uu sharcigu sareeyo haddii sharcigu sareeyo waxa weeye siyaasadda arrimaha gudaha Somaliland way toosay laakiinse haddaanu sharcigu sareyn oo waxa weeye qof walba wax soo doono u maamusho oo waxa weeye ciidamada amnigu say doonaan waxa weeye shacabka uu tacaddi ugu sameeyaan oo ay iskaga socoto sideen ilaa tan sano ay ku soo jiray taas waa tuugu meesha joog taas waa siyaasadda arrimaha gudaha siyaasadda arrimaha dibadda shantii sano ee ugu dambeeyay ama waxa moodaa xoogaa gaabayso inuu ka jiray khaasatan wadamada jaar marka waxa loo baahan yahay in aanaynu siyaasadda arrimaha dibadda aanay ku soo koobnaan wasiir shandad qaata oo waddan taga oo la soo hadlo ka soo noqda laakiinse ay noqoto aragti iyo program isku xiran oo khubradii hore ee maartay arrimaha dibadda aqoonta u lahaynta loo soo ururiyo siyaasaddii hore arrimaha dibadda wax badan laga bedelo oo la jeexo istaraatiijiyad keeni kara in waxa weeye adduunku waxa weeye furayaal waaweyn baa loo baahan yahay oo afilada waaweyn ku jaban marka waa in la keenaa khuburo ka soo shaqaysay arrimaha dibadda oo siyaasadda arrimaha dibadda aad iyo aad u taqaano oo wasaaradda arrimaha dibadda lagu soo ururiyo oo tala qaran laga yeeshaa istaraatiijiyadda siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya halkay ka duuli karto xukuumadduna ay ku dadaashay inay xoojiso xiriirka wadamada jaarka iyo IGAD iyo midowga Afrika kadib markaas aynu waxa weeye caalamka kale la macaamil midda kale waa inay xukuumaddu wada hadalka ay Soomaaliya la gelayso aanay oran 4 qof ama 5 qof ama 6 qof oo shandida ay soo fadhiistaan qolmadooda la isugu xirayo waa inay xukuumaddu wixii hore laga soo wada hadlay ilaa maanta wax ka midna ma hayno waa inay 10 ka qaadataa oo ay aragtaa maxaa faa'iido Somaliland uga soo kordhay maxaa khasaare uga marka hadaan meeshii faa'iido ka soo socon waa in kaana gabi ahaan la bedelaa oo inta la joojiyo dib waxa looga fikiro kadibna cid inoo dhaxayni karta oo labadii qolo dhex fadhiisani karta oo waxa weeye dhex u noqon karta la isla tagaa waxa weeye si dhaba wada hadalkii loo galaa oo qadiyadan dadkan ay ku doodayeen 27 sano cid ka mid ah dhalin karta loo diraa laakiin aanay isnoqon baxasho sidii hore ee waxa weeye inta guri Turkiga la isugu geeyay labada qolo lahaa hawliina wata kale madaxweynuhu sheegay inuu heshiiska hore wax badan ka bedelayo oo qaybkii wada hadallada laakiin sidaba maxaa xisbiyada mucaaradka ahaa
oo waliba khaasatan xisbiga wadani oo xisbi xoog leh haayo mucaarad weyn oo wadanka jira waxa laga filan karaa isagana muddooyinkan soo socda ama sanadkan soo socda hadii ilahayna idmo wallahi xisbiga wadani horta waa xisbi aqlabiyada shacabka haystay ku noqon maayo sababihii guuldarrada keenay sabab walba guuldarrada ha keento laakiin muhiimaddu waxa weeye guuldarro walba oo kugu dhacdaa waa inaad wax ka barataa xisbiga wadani waa inuu wax ka bartaa sababihii keenay guuldarrada xisbiga wadani wuxuu u baahan yahay dib u habayn ballaaran oo uu hoggaanka xisbiga uu sameeyo oo dib xisbiga waxa weeye loogu diyaariyo xisbi mucaarad oo adag oo waxa weeye xukuumadda waxa weeye dabarka ku hayni karaa sideedaba xisbiyada mucaaradka waxay u sameysanayn xukuumadda dabar ay u noqdaan oo xukuumaddu waxay doontaa inay sameeyaan ama xisbiga talada haya wuxuu doonaa inuu sameeyo marka dib u habayn ballaaran baa xisbiga wadani looga baahan yahay ambassador Siciid Cawsle aad iyo aad baad ugu mahadsantahay waraysigaaga waynu dhammaystiri doonaa qaybta xisbiga iyo waraysiga intiisa kaleba waxaana ku inoo ballana habeen dambe caawana halkaa inoo joogto aad iyo aad baad ugu mahadsantahay waqtigaadna siisay waa daawadayaal waxaa inoo ballana qaybta labaad iyo waraysiga iyo Jeegan Channel TV habeen dambe insha Allah haddii ay baydmo soo dhawow Jeegan Channel TV waa barkulan aad ka helayso waxyaabo badan oo horumar ku gaarsiinaya naftaada haddaba dhageyste ama daawade ma doonaysaa inaad hesho waxbarasho basic ah oo ah luqadaha iyo sayniska iyo xisaabaadka ma doonaysaa inaad hesho warbixino iyo warar sugan oo la hubo meesha ay ka yimaadeen iyo isha ay ku socdaan oo xaqiiqada ku salaysan jawaabtaadu haddii ay tahay haa inaad doonayso daawade subscribe Jeegan Channel TV daawo oo ku xidhnow share na la gaadhsiina saaxiibada